السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجيء وعبد السنة الخليجي. waxaan talo kuu soo gudbin doonaa insha Allah mar walbana aad la soo doontiin hala saaxiib la wajila ama saaxiib xun sababtoo ma ogtid sida uu noqon doono. Waxaa laga yaabaa saaxiibka xun waxaa lagu gartaa hadalla aan micno lahayn inuu kaaga sheekeeyo adigana aa ugu sheekayso waxyaabaha muhiimka ah isla markii hadalkaas ayuu qaada qof kale ayuu ugu sheekeynaa adigana faa'iido kuma helaysid asigana faa'iido kuma helaysid sababtoo waxaa laga yaabaa qofkaani uu sheekeynaysid waxyaabo wanaag ah inuu dhaho qofkan waxa uu iska sheekeynay wax fiican ma sheegaynin kaasi ka dheeraw saaxiibkaas waa saaxiib xun oo aan fiicneen in fikradaha wanaagsan la wadaago sababtoo bir waxaa laga yaabaa maalin kaleete hadal qof kale inuu ka soo qaado adigana kugu sheekeeyo adigana qof hadal kale uu sheekaysid hadal saas isku dhaxmaran si taas u gudubtid ama difaac u gudubtid mar walba isku day inaad qofkaani aad ka dheeraatid inta ka dheeraa karto. Ma santiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.